dhaqdhaqaaqa howlaha kalluunka iyo kalluumaysatada ayaa si weyn looga dareemayaa magaala xeebada Berbera maraanu saaka booqanay dekada kalluumaysiga ee magaalada Berbera oo loo yaqaano Berbera Neckfish waxaa dekada ku xidhnaa doonyo kalluumaysi laashash huuriyaal iyo waliba huuriyaal ku gaashamaan qalabka kalluumaysiga sida shabaagta iyo qalab kale oo loo adeegsado jilaabashada iyo waliba dabinada kalluunka lagu qabto doonyahaasi iyo laashashka kalluumaysi ee saaka ku xidhnaa dekada ayaa waxa ay isugu jireen doonyo keenay kalluun iyo waliba kuwo iyaguna haatan u shiraacanaya badweyn si ay u soo jilaabtaan kalluunka iyo qaar ku jira iyaguna diyaar garow sidii ay uga mabixi lahaayeen naaqudihii doontii ugu dambeysay ee saaka kalluunka inta dekadaasi aanu la kulanay ayaa waxa uu sheegay in muddo 5 habeen uu ku maqnaa badweyn uu soo helay in ka badan ilaa 250 kiilo oo kalluuna waxaana uu sheegay in xilligan ay badu degan tahay oo aanay jirin wax daba ilaahi حسن أحمد بالله الحمد لله رب العالمين هذا رأنا فوق الله حاجة بدنا كل نبي سنة في بالو مغلين الحمد لله وحي لهيدي نسوسين واسدة حاجة بقى ودينا عبارك البيت حاجة وقعد البيت بانو قبلنا يعني أدو أنت المراكب توحي كشيء مرجوق الحمد لله رب العالمين بدنا وسكت أنت هاي ودك وسكت شو صلحنا والله سعونا يعني معدا إلهي كسي إلا شتى هبل إلا امسك كيلو كلون ما صاش أدو لا بقول يكتك كيلا برشيد إنه عبو بديه كلون كبار دقالوي كلون عدوي وكلون عدو حوي كلون كلا هذا هذا أنت لباحة تبيد ما يقع عراء وحنا عاسوي ديرك ما كشرا ديرك هاي ديرك كشرا ديرك بكشرو نقول بولي وكلون عداوي الحمد لله رب العالمين لكن وكلا غالسين هاي يدرتو كلون بجد بدأ وكير هذا مك أجهلني بكلا كفربته وأوشيد وفربانته بدأ marka badu imika kalluunkeedu uu yaraaday hadir aad buu wanaagsan yahay qaaliga lacag wanaagsan bala sista kiilooga ma saasiisa adoo kalluunka wax qidmo qalba qiimana laga sista marba qalba qiimo leeyahay qaar 14 qaar 15 wax noocaas weey deerigo kale kiilooga ma saasiisa deerigo qaalisan oo qaali weey ilaahay deerigo dhowr ilaa kiilo marka ma kalluunka ugu qaalisan waa kalluunka ugu qaalisan deerigo waa kalluun cadaan oo kalluunka ugu qaalisan kalluunka ugu nafaqada badan leh marka waxa weey badu aad iyo aad bay isaga wacan tahay ما نولدك وكلنا حاجة ودرتها مركز هرجيسة يودي بربرة برعاية روكها صلوا كنا درا سيدو كلنا يسودوها وسردها حنانة حولها يهور مريتها كلوميسيجا عبد الكريم عثمان عيسى عواري ويسوقنا نوحكوا يدينا حولها كلون كيا كلوميسيجا وقت كان أيها يسوقنا كوار ما يجودهان بهاوله سيدا يهين حولها هرت قيبت كلوميسيجا الحمد لله حدقي كلوميسيجا يسعته ويان iyo dadkii kalluumaysiga ay wateen iyo wixii ay ka soo saaranayeen badda iyo kheyraadkeeda si fiican bay markaa ugu socotaa daily muxuu ahaa inspection iyo wixii meesha ka jira shaqada oo xagga neckfishta alxamdulillah si fiican bay u socotaa iminka bal waxaad ka warrantaa xilligan tirada iyo tayada kalluunka iyo kalluumaysatadu ay kobcooda siduu yahay tayada horta inta badan iminka xilligii kalluunka la soo saarayay waa lagu jiraa oo kalluumaysataduna maalmo walbana kalluun fiican way kala soo baxaan meesha hawshanana dee wixii wasaaradda horumarinta uga baahan tahay kab iyo muxuu ahaa taageeraba waanu qabanay waanu joognaa markaad eegto doonyaha iyo laashika inta idin diiwaan gashan kalluumaysiga ee badda gala inta tirsaba way noogu jiraan iminka waa waynu imaadaan kii cusubba meesha la imaado baba waynu diiwaan gelinaa dee sidii sharcigii meesha u yaalay wixii meesha u yaalay khaasatan la doonayay intaanu meesha gelin iyo sharciga laga doonayo laysankiisaba waanu dhammaystirnaa waanu dhignaa meesha waanu faarkiisa waanu dhammaystirnaa waa sida markaa wada shaqayntiinu idinka iyo kalluumaysatada saa u xidhiidhaa wala xidhiidhku waa maasha allah meel fiican bay noo socotaa ha noqoto qaybta kalluumaysiga dee inay noo imaadaan iyo wixii loo baahan yahay ha noqoto ama ha noqoto iskaashatada meesha joogtaan la garab istaagna ama hay-adda caalamiga timaada shaqada ay noqoto intaba waynu la joognaa ha noqoto xataa laanta amnigaba ha noqoto intaba meeshaba waynu ka wada shaqeynayo lama amniga ha noqoto ama lama hay-adaha caalamiga ama qolada qaybaha kalluumaysiga qof walba keligii dee maalintiibaba taga soo kalluumaysta maalin walba badda u gale soo qaata kheyraadkeeda iyo ka faa'iidaysta intaaba waynu garab istaagna waynu la shaqeynaa kalluumaysatada ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan maraakiib iyo doonyo jariif oo ay sheegeen inay badda xaalufiyaan kuwaasi oo isugu jira kuwa si sharci darro u kalluumaysataa iyo weliba qaar ay wasaaraddu ay sharci siisay
magaalada berberna waxaad ku dhex arkaysaa dad ajaanib oo isugu jira hindi iyo yamani oo ka yimid qaaradda ama wadamadaasi Asia kuwaasi oo inta badan ay keensadeen dad muwaadiniin oo shariikado leh kalluumaysi kuwaasi oo hawsha ay qabtaan ay tahay tii loogu talagalay dadka muwaadiniinta ay qabtaan oo taasi ay ka mid yihiin jilaabashada kalluunka iyo waxyaabo la mid ah taasi oo ay wasaaradda shaqada iyo horumarinta bulshadu ay hore uga soo saartay wareegto inaanay dadka ajaanibka ahi loo keenin waddanka waxay qaban karaan dadka muwaadiniinta ahi inta badan dadkaasi waxa wata dad muwaadiniin ah oo u dhashay dalka jamhuuriyadda Somaliland Cabdi Salaan Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera